leenahay shukaansiga xalaasha ah macnaheedu waxaan u fahmayaa guurdoonka xalaasha ah inuu yahay waxa weey ka ku salaysan sharciga sharcigeenu marka hore si aan sida u imanin nin iyo gabar kale ajnabi ah wuxuu u diiday istaawashadooda iyo wada hadalkoodaba waayo waa wadooyinka sinada waa la xiray laakiin marka guur la doonayo inay sarkaana waa la ogol yahay inay wada hadlaana waa la ogol yahay labadaba fi xuduud waana xad baana taa u yaalo in gaarabu ka arki karaa wajiga gacmaha si uu qofkan quruxdiisa iyo jamaalkiisa u arko iyaduna way iska eegaysaa isaguna wuu iska eegaya nabiga sida farooyid halla nadartaha inantaad guursanaysa ma iska eegto waxa la doonayaa laba qof oo isku qanca ma doonayna laba qof oo la isku qasbo ama la isku qariyo marka dambe soo kala booda waana labada qof ilaa midibaka kale dharkii uu gashanayo way ninku xaaska ayuu dhar u yahay asturaya iyaduna dhar asturaya u tahay quraanka sheegay inna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dama naqaano lama yaqaano qof intuu bacadlaha iska tago wuxuu iska soo xambaarta dhar laakiin mid waliba wuxuu raahdaa may leeyahay talo quruxdiisu waa maxay may cajabiyay may asturaya ma ku xaragoon karaa ta dharkii oo caynkaas maxaad u malayn qof dhan oo bani aadam oo noloshaada kugu lifaaqnaanaya marka aan idhaahna guurdoonka xalaasha ay wada hadalka xalaashi waa ka wax xaraana in iyo gabadh aan wali isu mehersanayn oo dhaxda isaysta isla caweynaya isla dalxiisaya isla cashaynaya sidii muraayada saasuun isu daawanaya labadan qof waa bani aadam hamad bay leeyihiin shaytaanna waa saddexaynaya muddo markay sida ay isugu warwareegaan waxa ka soo baxaya dee su'aasha dambe waxa ku jiro asinadii haddii sinadaasi timaado iyo ceebtaasina deynantii mustaqbalkeedii baa ka xumaaday iyo inankiiba dambina way ku dhaceen ceebna way ku dhaceen warwarkuna uu ka badanaya xayaatudana way ka xumaanaysa aqal iyo ubad iyo oori iyo oday intuba kharibne inantii aqal ma haysato ubad markaa aabalana ma haysato oday masruufo oo saygeediyana ma hayso cidla laga tagaya idan markaa sababta uu sharcigu arrimaha albaabada xun xun xiray waa taawi